hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay xubnihii ka haray ciidankii duufaan ee ay aasaastay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo badankood u baxsaday kooxda Al-Shabaab. xubnahan la xiray waxay isugu jiraan askar caadi iyo saraakiil laba magaalo ayaana laga soo kala xiray. warbixintaas ayaan rabaa inaan kula wadaago. soo dhawaada saaxiibayaal, idinkuna muuqaalkan like saaro oo si share gareeya la wadaaga dadka Soomaaliyeed aragtidiina comment ka dhiibta. badankood ciidankaasi shabaab ayaa toddobaadkan soo bandhiga. soo dhawaada warbixin xasaasi ah ayaan aniguna idinkaga hayaa maanta. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa la sheegay inay xirtay xubno ka tirsan ciidanka duufaan kuwaas oo laga soo kala xiray laba magaalo oo ku yaalo Soomaaliya, isla markaana ciidankaasi in badan oo kamid ah ay isku dhiibeen kooxda Al-Shabaab. kooxda ayaa toddobaadkan soo bandhigtay ku dhawaad 30 askari oo kamid ah ciidanka duufaan kuwaas oo ka baxay xerada ADC ee magaalada Baardheere ee gobolka Gado iskuna dhiibay kooxda Al-Shabaab. xubnaha la soo bandhigay waxa ku jiray dad la yaqaano oo kamid ah nin fanaana oo hore ciidanka duufaan dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ugu dartay balse iska dhiibay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo kooxda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. haddaba hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa iyada oo ka duuleysa tallaabadaasi waxa la sheegay in xabsiga la dhigay xubno badan oo ka tirsan ciidanka duufaan ee hoostaga nabad sugidda Soomaaliya. waxa la sheegay in tirada la xiray ay ku dhow yihiin 30 ruux, waxaana la sheegay in laga soo kala xiray ama laga kala xiray xero ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis oo lagu magacaabo Farow, isla markaana taliska guud ee ciidanka duufaan ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. qolada labaadna waxa laga soo xiray xerada ADC ee magaalada Baardheere ee gobolka Gado oo ah meesha xubnaha ugu badan ee iska dhiibay kooxda Al-Shabaab ay ka baxeen. ciidamadan waxa hore u soo xulay taliskii markii uu joogay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. taliskiisa ayaana ciidankan asaasay iyadoo oo la baabi'iyay meeshana laga saaray ciidamadii gaashaan iyo waran ee nabad sugidda Soomaaliya hore ugu shaqeyn jiray. magacaas ayaa loo bixiyay duufaan, waxaana la sheegay in qorshaha ciidankan lagu aasaasay inuu ahaa inay fuliyaan howlgallada gaarka ah ee ay doonayeen taliskii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya. waxa la xasuustaa ama kamida weeraradii ay ka qayb qaateen ciidamadan kii lagu qaaday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee waqtigaasi madaxweynaha hadda talada haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo labaduba waqtigaas ahaa madaxweynayaal hore. weerarkaas waxa uu ka dhacay hoteelka Maa'ida ee magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay inay ka qayb qaateen ama badankiiba ay hogaaminayeen saraakiisha ciidanka duufaan. ninkii haddaba ciidankan taliyaha u ahaa ee weerarkaas hogaaminaya waxa la xasuustaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee u baxsada kooxda Al-Shabaab. muddo haatan laga joogo sanad ka hor ayuuna isku dhiibay kooxda Al-Shabaab kadib markii nabad sugidda Soomaaliya ay ogaatay in ninkan uu yahay nin laba kaara ah oo la shaqeynaya kooxda Al-Shabaab markii horena halkaas ka yimid. arrinta haddaba la yaab kale waxay tahay inay ku jireen markii horeba ciidankan kuwa badan oo Al-Shabaab ka yimid ama ka tirsanaa kooxda sirdoonka ee kooxda Al-Shabaab. waxa la sheegay ciidamadaasi in badankood la geeyay xerada ADC ee magaalada Baardheere, waxaanay ahaayeen ciidan u badan markii horeba gobolka Gado oo dhammaantood ama intooda badan waxa la dhihi karaa waxa laga keenay gobolkaasi. hadda nabad sugidda Soomaaliya ayaa xirtay xubno kale oo ka tirsanaa kadib markii la sheegay in loo baahan yahay in la marsiiyo baaritaan dheeraad ah xubnahan inay xiriir leeyihiin Al-Shabaab, in sidoo kale ay jiraan dad laba kaaryaal oo nabad sugiddana la shaqeeyo dhanka kalena la shaqeynaya si haddaba baaristaas loo marsiiyo saraakiisha iyo askarta duufaan ka haray ee ku kala sugnaa magaalada Muqdisho iyo degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa la sheegay in xabsiga la dhigay oo hadda halkaasi ay ku xiran yihiin. kuwii Baardheere lagu xiray xerada ADC ee degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa la sheegay in xitaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho si halkaasi ay ugu maraan baaritaan dheeraada oo ay ciidamada ama saraakiisha qaabilsan baaritaanada ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ay u wareystaan. toddobaadkan sida aan hore idinkugu sheegay badankiina aad aragteen kooxda Al-Shabaab ayaa baahisay muuqaallo ay ku jiraan askar lagu soo tababaray Baardheere iyo Muqdisho oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya, qaarkoodna ay ka tirsanayeen ciidanka xoogga dalka ama loo tababaraya. waxa kaloo jira in ciidamadan qaarkood markii dawladdan cusub ay timid in la go'aamiyay in tababarkoodu u sii socdo nabad sugiddana laga wareejiyo oo lagu daro ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. iyadoo oo processkaas uu socdo ayayna go'aansadeen inay ka baxsadaan xerada
oo isku dhiibaan kooxda al-shabaab haddaba xarigooda iyo faahfaahin iyo macluumaad dheeri ah wixii ka soo kordho xubnaha nabad sugidda Soomaaliya ee xabsiga dhigtay daqiiqad kasta iyo mar kastaba halkan idin kula soo wadaagaya waxaan kala socon doontaan boggeyga Axmed Saciid Axmed haddaba sidee baad u aragtaa tallaabada ay qaaday hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ku saxan tahay mise aragtidaada commentiga ka dhiibo muuqaalkan Alex Aro oo si share gareeya waa mahadsantiin